inta la xasuusto 8 sano u dambeysay waa markii ugu horeysay oo muddo hal bil ah Muqdisho gudaheeda laga maqal sawaxan qarax. Muqdisho ayaa ahayd magaalo marti u ah mar walba qarax, waxaana yareed maalin ay qorxi soo baxday oo uusan qarax ka dhicin gudaheeda. Inkastoo hawsha aysan dhaweyn oo dawladda looga fadhiyay wax badan oo dhanka ammaanka, haddana waxaa mudan in lagu ammaano isbeddelka dhabta ah muuqda iyo howlkarnimada niyad wanaag u heliso. waxaa soo maray dalka xukuumado badan oo mid walbaaba siyaasad gaar ah oo dhanka ammaanka la timid, balse ma jirin ficil muujinayay in la abaaro wadada saxda ah ee ammaanka dalka wax loogu bedeli karo oo ay la imaadeen xukuumadahaasi. waxa ugu badan ee laga dhaxlay ay ahayd ambaareen qarax dhacay oo aan kala gool ahayn iyo guddi baar ayaan u xil saarnay. kadib 8 Febraayo oo farmaajo la wareegay xilka, waxaa laba jibaarmay qaraxyadii Muqdisho oo gaaray heer maalintii 3 qarax magaalada gudaheeda ka dhacaan. soo dhisitaankii xukuumadda dawladuna ay yeelatay sal ay ku fadhiisato. dadweynaha reer Muqdisho oo dhibka ugu badan qabay waxay is weydiiyeen dawladan cusub ma cambaareyntii ay halkooda ka sii miisi doonaan ama sida loo hamuun qabay wax ka duwan ayay la imaan doonaan. dawladda Soomaaliya jawaabtii looga fadhiyay ma noqon mid ku sii daahda oo waxay qaaday tallaabooyin cad oo amniga Muqdisho wax looga qabanayo. waxayna ugu dawanaatay xukuumadii hore inay yeelato qorshe fog oo amniga wax looga qabanayo, kuwaasi oo leh qaybo kala duwan oo midkiisa kala jawaabta ka soo baxda ay ku xiran tahay kiisa kale. qorshii ugu horeeyay ayaa ahaa in la sameeyo ciidamo isku dhaf oo amniga Muqdisho ka shaqeeya. waxaa halkaasi ka baxay isdhaxyaaca ciidamadii badnaa ee magaalada joogay. qorshihii labaad ayaa in dhammaan ciidamada militariga ee Muqdisho waxaan dhib ahayn ku haynin laga saaro dhammaantood iyagoo la tijiyay xariiq ka baxsan magaalada. waxaa halkaasi ku afjarmay ciidamadii badnaa ee qoryaha magaalada la wareegayay. qorshihii saddexaad ayaa ahaa in dhammaan maleeshiyaad kubka ku dhex wata Muqdisho laga xayuubiyo, waxayna arrintaasi keentay in magaalada Muqdisho dadku ku maraan si istiraxa oo waxaa laga nasay ciidamadii maleeshiyaadka iyo kuwii militariga ah ee dadka adeegsada wadooyinka qoryaha ku taagi jiray. magaaladuna waxay yeelatay ciidan la ogyahay cidda xukunta iyo halka uu saldhigoodu yahay. qorshihii u dambeeyay ayaa ahaa in la adkeeyo baaritaanada kontaroolada magaalada laga soo galo oo la geeyay ciidamo aad u fara badan iyo tababaran oo kaalmeeya ciidankaasi. sidoo kale waxaa laba jibaarmay baaritaankii gudaha magaalada Muqdisho. kadib tallaabooyinkaas isxigxigay oo mid walbaaba natiijadii laga dhaxlay caawinaysay tallaabada xigtay, ayaa waxaa sababtay in muddo bila la xakameeyo qaraxyadii Muqdisho oo markii hore ahaa sida webi daad furtay. ciidanka NISA oo ah kuwa hubaysan ayaa loo bedeli doonaa dhar cad ka dhex shaqeysa gudaha magaalada, waana tallaabada xigtay ee la doonayo in lagu sii adkeeyo ammaanka xogag badanna lagu helo kahor intaysan qaraxyada dhicin. way adag tahay inaad is hor istaagto qof naftiisa raba inuu taada ku haligo, haddana waxaa muuqata howlkarnimo iyo adeeg aysan qabin reer galbeedka oo iyagu qudhoodaba qaraxyo ka khasaare badan kuweena ka dhacaan. sooma mudna in la dhiirigeliyo askariga Soomaaliyeed ee qorraxda u taagan isagoo difaacaya inuu dhiig Soomaaliyeed dhulka ku daato waliba aan qaadan mushaar noloshiisa kaafiya. inta lagu guda jiray bishan sida xogtan ku helay waxaa laga hortagay 3 qarax oo ka mid ahaa gaari weyn oo qarax siday, balse lagu dhexqeeyay agab kale oo lagu qabtay kontaroolka sinka dheer ee Muqdisho laga soo galo. ugu dambeyntii maanta waxaa la joogaa waqtigii aad qayb ka qaadan lahayd horumarka dalkaaga. waxaa la joogaa waqtigii aad caawin lahayd askariga Soomaaliyeed ee qorraxda daltaada u jooga. waxaa la joogaa waqtigii aad gudan lahayd waajibkii ka saarnaa dalkaaga. qarankeena oo xoog yeesha waxay ku xiran tahay adiga, asaga, iyada iyo annaga oo dhan oo u wada jihaysana sidii aan u caawin lahayn ciidankaasi qorraxda u taagan darteena. fadlan muwaadin meel walba caalamka aad ka joogto adigoo adeegsanaya akoonada idinkaga muuqda shaashada ku caawi ciidanka Soomaaliyeed in walba oo aad awoodo.